abbaara afradii kadib ayaa dab xoogani ka kacay barxadda weyn ee dekedda berbere ee loo yaqaano Wajaale oo ka mid ah barxadihii sanadii 2015 ilaa 16 lagu soo kordhiyay dekedda berbere waqtigaasina uu dhisay maarayihii hore ee dekedda berbere injineer Cali Xorxor sida la og yahayna dabkaasi waxa sababay konteenaro ay ku jireen kimikada laga sameeyo taydha ee dhinaca warshadaha debinta iyo baqtiinta dabkaasi ayaa waxa gurmad ka sameeyay shaqaalaha haamaha shidaalka ee berbere ee loo yaqaano BOG iyo waaxda damdamiska ee dawladda hoose ee degmada berbere oo iyagu mar walba heegan ku jira waxaana ay ku guuleysteen inay dabkaasi baqtiyaan geesta kale halka wararka aanu goobtaasi ka helnay ayaa sheegaya in dekedda berbere xilligan aanay haysanin shaqaale u tababaran daminta iyo baqtiinta dabkaasi geesta kale waxa halkaasi dhaawacyo ka soo gaadheen laba kamid ah shaqaalaha haamaha shidaalka iyo mid kamid ah shaqaalaha dawladda hoose ee berbere oo ahaa dadkii sameynaya gurmadkaasi gacan ku haynta dekedda berbere ayaa xilligan ah mid ay maamusho shirkadda Carbeed ee loo yaqaano DP World mana jiraan cid ilaa imika ka hadashay khasaaraha rasmiga ah ee uu keenay dabkaasi waxaana dib idinka soo sheegi doonaa wixii khasaaraha iyo wararka rasmiga ee ka soo kordha Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee SAB TV magaalada Berbera